kulan wanaagsan saaxiibayaal xasarada Suudaan iyo Itoobiya 100 sano ka badan ayay jirsatay maxaa basiinka ku sii shubay صحيح فرطنا سنين طويلة جدا في الوطن دي لكن هسه رجعت لنا وتاني إلا نموت كلنا نفل فيها هنا حتى نخليها إسرائيل إماراتك iyo Bahrain oo dalbanaya inay ka qayb noqdaan wada hadallada Iiraan laga galayo barnaamijkeeda nuclearka kadib markii xayiraadaha laga khafiifiyay ay dawladda Qatar waxay ka odaynaysaa Iiraan iyo dawladaha khaliijka maxay yihiin ciidamada gaarka ah ee ilaalinaya amniga caleemasaarka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden qodobadaas oo faahfaahsan ayaanu goordhow u galaynay soo dhawaada markale kulan wanaagsan waxaanu ku bilaabanaynaa xiisadda u dhaxaysa Suudaan iyo Itoobiya dabayaqada sanadkii hore ay dawladda Suudaan go'aan ku gaartay inay soo dedejiso qorshe ay ku howlaneyd balse ay dib u dhigi jirtay sida ay sheegaysay kaasoo ahaa inay dib u soo ceshato dhul ka maqan oo dhaca soodinta ay la leedahay Itoobiya tallaabadaas ayaa daba socotay markii weerar gaadma ah lagu dilay tiro ka mid ah askarta dawladda Suudaan waxaanay xukuumaddu ku dhaqaaqday jawaab tan iyo markii uu dhacay weerarkaas lagu dilay ciidamada Suudaan oo ay fuliyeen maleeshiyada Ethiopiana waxaa sii socda howlgallada militariga Suudaan ay qaadayeen howlgalladaas ayaa ku dhamaaday in ciidamada militariga Suudaan ay dib ula wareegaan gacan ku haynta deegaano ay maamulayeen kooxo hubaysan oo reer Ethiopia abaanduulaha guud ee ciidanka militariga Suudaan Abdulfatah al-Burhan ayaa xaqiijiyay in ciidankiisu uusan ka bixi doonin aagaga ay dib u soo ceshteen ayna ilaalin doonaan wuxuuna intaas ku daray in dhulkaas aanu ahayn dhul lagu muransan yahay balse uu yahay dhul ay leedahay Suudaan dhinaceeda xukuumadda Addis Ababa ayaa isku dayaysa inay yareyso oo aysan ahamiyad weyn siinin waxa xilligan ka dhacaya xuduudda ay la leedahay Suudaan taliyaha ciidamada Ethiopia General Berhanu Gula ayaa isagoo ka hadlayay dhaqdhaqaaqa militari ay Suudaan wada waxa uu yiri waxaan aaminsanahay in duulaanka Suudaan ay wadaan koox yar oo ka tirsan dawladda oo ku shaqeynaya ajandaha dal saddexaad waxay doonayaan inay nagu riixaan dagaal mana dhici doonto dabinkaas inaan ku dhacno ma aaminsani inay dawladda Suudaan ay kala tashatay dadka reer Suudaan tallaabooyinkan militarigu qaadeen ayuu hadalkiisa ku daray taliya Gula ma uusan cadaynin cidda uu la jeedo dhinaca saddexaad waxaase u muuqata arintani in Itoobiya ay si ku meel gaar ah indhaha uga laabanayso duruufo ku hareeraysan dartood laakiin xuduudahaas waa sohdimo aysan dawladaha si buuxda u xakamaynin ama u maamulin mararka qaarkood waxa loogu yeeraa xuduudahaas aagaga lagu muransan yahay gaar ahaan marka labada dal oo daris ah oo mid walba xaqa uu leeyahay uu sheeganayo mararka qaarkoodna waxa loogu yeeraa dhulka la gumaysto ereybixinadu waxay ku xiran yihiin aragtida hadba dhinaca hadlaya 100 sano ka badan ayay colaadahan taagan yihiin jaamacadda carabta iyo midowga Afrika midkoodna kuma guuleysan xalinta khilaafkan iyo kuwa la midka ah dhibaatooyinka xuduudeed mararka qaar waxay ka gudbaan xuduudaha qaaradda Afrika khilaafka soodimaha waxa uu noqday sidii duufaan oo kale oo aan la ogeyn goorta ay bilaabmayso iyo goorta ay dhamaanayso ama sida ay u dhamaanayso khilaafka xuduudaha Afrika gaar ahaan qadiyadan u dhaxaysa Suudaan iyo Ethiopia iyo dawladaha kale oo ay labadan dawladood isku dhaceen ama isku hayaan dhul oo dabcan Soomaaliyana ay soo galayso xalqad gaar ah ayaan ka soo diyaarin doonaa warbixinada kale ayaan ku sii soconaynaa ergada Imaaraadka Bahrain iyo Israa'iil u jooga dalka Mareykanka ayaa sheegay in maamuladooda ay waajib tahay inay qayb ka noqdaan wada hadallo kasta oo dhexmari kara maamulka Mareykanka ee talada la wareegaya iyo xukuumadda Tehran waase wada xaajood ku saabsan heshiis cusub oo laga gaaro nuclearka waxay intaas ku dareen in la hubiyo in heshiiska la galaya uusan Iiraan u ogolaan doonin inay kobciso macdanta uraniumka danjirayaasha saddexda ah ee Yusuf al-Utayba Sheikh Abdullah bin Rashid bin Abdullah al-Khalifa iyo Ron Dermer ayaa waxa ay si kulul u weerareen jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan intii lagu guda jiray dood toddobaadkii hore ay martigelisay mu'asasada difaaca dimuqraadiyadda oo ah macahad siyaasadeed oo saldhigiisa yahay Washington waxay ku andacoodeen in maamulka soo socda ee madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden uu awood qalqaale oo baaxad leh ku yeelan doono Tehran mana aha bay yiraahdeen inuu ku khasaariyo taas isagoo si fudud ugu soo laabanaya heshiiskii nuclearka ee 2015 la gaaray oo si rasmi ah loogu yaqaanay Joint Comprehensive Plan of Action oo loo soo gaabiyo JCPOA danjire Utayba wuxuu ku dooday in codadka gobolka aan lagu metelin wada hadallada uu soo saaray heshiiskaasi
waxaa jira awood qalqaale oo baaxad leh oo Mareykanka ku leeyahay Iran xilligan mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaan si dhab ah uga fekerno inaan sameeyno ayaa ah inaan eegno in heshiiska soo socda ee JCPOA 2 uu ka wanaagsan yahay heshiiskii hore ee ay qaladaadka ku jiraan ee JCPOA 1 ayuu yiri danjiraha Imaaraadka waxa uu intaas ku daray haddii aad miiska wadaxaajoodka la timaado saaxiibadaada Carabta iyo kuwa reer Yurub waxa aan u maleynayaa inaad muujinayso koox gorgortan xoog leh oo aakhirkana ku horseedi doonta natiijo wanaagsan Iran iyo dawladaha shanta lagu daray hal ama 5+1 loo yaqaano oo kala ah Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka oo lagu daray Jarmalka ayaa bartamihii sanadkii 2015 waxa ay gaareen heshiiska JCPOA oo lala galay xukuumadda Tehran laakiin madaxweynaha xafiiska banaynaya ee Trump ayaa wuxuu isaga baxay heshiiskaasi bishii May sanadkii 2018 waxaana dib u soo rogay cunaqabatayntii ka dhanka ahayd Iran ee looga qaaday heshiiskaasi dhinaca kale iyadoo xaalku halkaas marayo ay xukuumadda Dooxa isku dayaysaa inay ka odayayso Iran iyo Carabta wasiirka arrimaha dibadda dalka Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa ugu yeeray dawladaha xubnaha ka ah golaha iskaashiga gacanka Bershiya inay wada hadal la galaan Iran oo daris la ah si xal looga gaaro xiisadooda hadalkan ayuu ku sheegay waraysi uu siiyay shabakadda wararka telefisyoonka ah ee Bloomberg Al Thani wuxuu tilmaamay in la joogo waqtigii ku habboonaa ee ay Dooxa wada hadal noocan oo kala ah dhexdhigi lahayd wuxuuna sheegay in muddo dheer uu ku baaqayay shir madaxeed ay yeeshaan hogaamiyaasha golaha 6 xubnood iyo mas'uuliyiinta Iran wuxuu sheegay in dawladdiisu ay ku rajo weyn tahay intaas ay dhacdo oo aan walina aaminsanahay buu yiri inay tahay inay dhacdo tani sidoo kale waa rabitaan ay wadaagaan wadamada kale ee GCC ayuu yiri diblomaasiga sare ee Qatar hadalladan ayaa imanaya iyadoo horaantii bishan Saudi Arabia Imaaraadka Bahrain iyo Masar ay saxiixeen bayaan ay dib ugu hagaajinayaan xiriirka Qatar ka hor shir madaxeedkii GCC ee ka dhacay magaalada taariikhiga ah ee Al Ula ee Sacuudiga si loo khafiifiyo khilaafka kala dhaxeeya Qatar taasina waxay muujisay dhamaadka 3 sano iyo bar cunaqabatayn ah oo ay ku go'doomiyeen wadanka tamarta hodanka ku ah bishii June 2017 afartaas dal waxay ku eedeeyeen dawladda Qatar inay taageerto argagixisada xiriir dhowna ay la leedahay Iran ugu dambeyn waaxda difaaca Mareykanka ee The Pentagon ayaa ogolaatay in boqolaal ciidamo gaar ah oo khibrad u leh la tacaalidda hubka kiimikada ah biologiga nuclearka shucaaca iyo walxaha qarxa ay qayb ka noqdaan ciidamada ilaalinaya nabadgelyada munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha dooran ee Joe Biden oo dhacaysa Arbacada 20 January 2022 jariidada The Politico ayaa soo warisay Isniintii in 750 askari ee howlgalka gaarka ah ay taageeri doonaan tallaabooyinka amniga ee la xoojiyay iyadoo sharci dejinta maxalliga ah ay sii wadaan la socodka hanjabaadaha rabshadaha leh ee Washington DC ka hor xafladda 20 Janaayo sida ay sheegeen laba sarkaal oo military ah oo ka hadlay xaaladda iyagoo aan fasax u haysan ciidamadan gaarka ah ayaa sidoo kale ku xeel dheer ka hortagga walxaha qarxa waxayna xirfad u leeyihiin ka jawaab celinta dhaawacyada sida uu sheegay sarkaal magaciisa ka gaabsaday sarkaalka ayaa intaas ku daray in ciidamada gaarka ah ay la shaqayn doonaan hay'adda maareynta xaaladaha degdega ah ee federaalka iyo howlwadannada caafimaadka si ay u sameeyaan baaritaanka coronavirus ama COVID-19 iyagoo gacan siinaya dhakhtarka aqalka Koongreeska tallaabadan ayaa ka dhalatay weerarkii taageerayaasha Trump toddobaadkii hore ku galeen Capitol Hill waxaanu intaas ku soo gabagabeynaynaa warbixinada ugu waaweyn adduunka saaxiibayaal waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin nabadgelyo